السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله. markay ku guuldareysteen fulinta go'aankii maxkamadda Namruud ee ka dhannayd Nabi Ibraahim wuxuu isku dayay Namruud inuu sheekada u bedelo dood diimeedka ka dhaxaysay Nabi Ibraahim iyo Namruud waxaa ka mid ahayd Nabi Ibraahim wuxuu ku yiri Namruud Ilaahay wuxuu nooleeyaa waxna wuu dilaa. Namruud ayaa yiri aniga boon sameeyaa. Deedna wuxuu dalbaday in la keeno laba maxbuus, midna wuu dilay midna wuu sii daayay. Wuxuu yiri mid waan nooleeyay midna waan dilay. qaab fikirkaas hooseeya ayuu Namruud la soo shirtagay, balse Nabi Ibraahim ayaa hor keenay Namruud taxaddi iyo challenge uusan awoodin inuu fuliyo. Nabi Ibraahim ayaa ku yiri Namruud Ilaahay wuxuu ka soo bixiyaa cadceedda dhanka bari ee adigana ka soo bixi dhanka galbeed. Namruud challenge-gaas taxaddigaas uu awoodi waayay inuu fuliyo, si caqli ahaan ayaa loogu guuleystay. caqligaas iyo naxariis ay ku dheehan tahay ayuu Nabi Ibraahim isku dayay haddana inuu ku qanciyo aabihiisa. wuxuu ku yiri aabba maxaad u caabudaysaa waxaan ku maqlaynin kuna arkaynin waxaan ku taraynin. aabba waxa iga yimid xagga Alle cilmi iyo diin oo adiga ku imaan ee iraac waxaan kuugu hanuuninayaa tubta toosan. ha raacin shaydaanka Ilaahay ayuu ku caasiyey. Aazar oo ahaa Nabi Ibraahim aabihiis ayaa yiri Ibraahiimo miyaad nacaysaa ilaahyaha wuxuuna bilaabay inuu si qalafsan kula dhaqmo. Aazar waxaa saameeyay qaab nololeedka bulshada uu la joogo. wuxuu arkay wiilkiisa Ibraahim inuu yahay mid lunsan oo ka takooran bulshadu la nool yahay, umana aaba yeelin imrinta iyo ixtiraamka wiilkiisa u haayo. wuxuu kala hortagay wiilkiisa qalafsanaan, wuxuuna ugu gundiyey hadduusan ka harin diinta cusub uu la yimid inuu dhagaxaynayo isla markaana u tarxiilayo meel fog. Aazar waxaa qalbiga ka galay sanam caabudidda iyo aragtida bulshada ee ka aaminsan tahay, wuxuuna nacay inuu ka maqlo wiilkiisa dacwada. bulshadu la noolaa Nabi Ibraahim waxay diideen inay aqbalaan dacwadii Nabi Ibraahim ay ka mid yihiin qoyskiisa. waxaa Nabi Ibraahim rumeeyey qura Luut oo ka mid ahaa qaraabada Nabi Ibraahim. deedna Nabi Ibraahim wuxuu ku yiri qoomkiisa waan idinka fogaan idinka iyo waxaad caabudaysaan. Nabi Ibraahim iyo Nabi Luut ayaa u hijrooday dhanka Shaam ayay degeen. gaar ahaan Nabi Ibraahim wuxuu degay Falastiin, Luutna wuxuu degay isla Shaamta gaar ahaan Urdun. kadib Ilaahay ayaa u doortay Luut inuu noqdo nebi ka mid ah nebiyada. Nabi Luut sidaas ayuu asagana wuxuu ku bilaabay dacwada magaalada uu degay inuu diinta ku faafiyo, halka Nabi Ibraahim asigana sii joogteeyay magaaladu asigana degay. Nabi Ibraahim wuxuu caan ku ahaa inuu adeegsado xujada iyo caqli. mar habeen la gaaray ayuu qoomka agtooda ku arkay xidig. wuxuu yiri xidigan waa rabbigayga. xidiga markuu qarsamayna wuxuu ku yiri aniga kama helo wax qarsamo. markuu arkay dayax soo muuqanaya ayuu yiri kan ayaa rabbigayga ah. balse dayaxii markuu qarsamay ayuu yiri hadduu Ilaahay hanuunin lahayn waxaan ka mid noqon lahaa dadka lunsan. subaxii markii la gaaray cadceedda soo baxday ayuu yiri tan ayaa weyn, tan ayaa rabbigayga ah. balse galabkii markay dhacday cadceedda ayuu wuxuu yiri dadoo waxaan beri ka ahay waxaad Ilaah la wadaajinaysaan. aniga waxaan u jeestay xagga Alle Ilaahaygii abuuray cirka iyo dhulka, asiga ayaan u baraxtiriyaa diintiisa suuban ayaan qaat mana ka mid yihi kuwa Alle wax la wadaajiyo. qoomku waxay bilaabeen inay Nabi Ibraahim kula doodaan diinta. Nabi Ibraahim ayaa yiri miyaad igula doodaysaan inuu Ilaahay i hanuuniyey wadada toosan, waxayna ku cabsiyeen in sanamadooda ay caabudaan inay wax yeeli karaan Nabi Ibraahim. Nabi Ibraahim ayaa wuxuu yiri kama cabsanayo waxa Ilaah la wadaajinaysaan, waxna iguma dhacayo marka laga reebo wixii Alle xagiisa iga qornaa mooyee. tan kale sideen u cabsadaa idinkaba uma cabsanaysaan idinkoo Ilaahay wax la wadaajiyo waxaan caddeen xagga Alle ka haysan. yaase mudan labadeena koox inuu cabsado. maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu u safray Nabi Ibraahim dhanka Masar. taasi waxay caddeen u tahay Nabi Ibraahim inuu ahaa dalmare, ilaan markii hore wuxuu ka soo haajiray waddankiisa Ciraaq, kadib wuxuu degay Falastiin oo ka wada mid ah qaaradda Aasiya. deedna wuxuu u safray Masar oo ku taala dhulka Afrika. Masar waxaa xukumaya boqor ku mashquulsan ugaarsashada naagaha qurxoon. wuxuu Ilaahay qadaray inuu la kulmo Nabi Ibraahim iyo xaaskiisa Saarana waxay ahayd naag qurxoon. boqorkii ayaa damcay Saara, balse kulan uu khaas la yeeshtay Nabi Ibraahim ayaa Nabi Ibraahim ku yiri waa walaashayda. kadib markuu u soo laabtay Nabi Ibraahim xaaskiisa Saara ayuu ku yiri boqorka waxaan ku iri inaad tahay walaashayda, ha ibeeninin ee qof muslin ah ani adi ahayn kuma noolo Masar. kadib boqorkii ayaa dalbaday inuu la kulmo Saara. Ilaahay ayay barisay inuu ka badbaadiyo sharta boqorkaasi. markay Saara u timid boqorkii ayuu wuxuu damcay inuu korkeeda taabto, balse waxaa hakatay gacanta boqorka, mana uusan awoodin inuu dhaqaaqo isagoon ogeyn waxa celinaya dhaqaaqa gacantiisa. sidaas ayuu ahaa 3 jeer. marka saddexaad ayaa Saara Ilaahay u barisay inuu iska daayo, ilaan waxay ka cabsatay in la dhaho boqorkii ayaa iyada dishay. markii gacantiisa caadi ku soo laabatay boqorkii ayuu wuxuu yiri war waxaad ii keenteen shaydaan ee u celiya Ibraahim, waxaadna ugu dartaan Haajar ha u adeegtee. Nabi Ibraahim iyo Saara iyo Haajar ay la socoto ayaa waxay u soo laabteen dhanka Shaam. muddo kadib markay wada noolaayeen ayaa Saara waxay u soo bandhigtay Nabi Ibraahim inuu guursado Haajar, ilaan Saara waxay gaartay cimri biliseed waxayna noqotay hawar madhalaysa. Nabi Ibraahim ayaa aqbalay talada Saara wuxuuna guursaday Haajar. awoodda Alle ayaa ka mid tahay in Ilaahay uu aqbalay dacwadii Nabi Ibraahim iyo Saara markuu boqorka damcay ilbiriqsi ugu jawaabay, balse wuxuu aad u dibdhigay dhalidda Saara. Ilaahay ayaa hago danta dadka iyo waxa khayrka ugu jiro. sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. assalaamu calaykum.